sideedii bishii lixaad 793 markay taariikhdu ahayd oo ah qarnigii sideedaad jasiirad nabdoon oo lagu magacaabo Lindisfarne oo ku taalla xeebta waqooyi bari ee Ingiriiska ayaa subaxnimadii hore ku waabariisatay cod aanay hore weligood u maqlin. Goobtan waxaa loo yaqaanaa jasiiradda barakaysan. Ciidan hubeysan oo wata doonyo dhaadheer oo afkooda u samaysan yahay sida maska draagonka ayaa si sanqadh la'aan ah hal mar dhinaca xeebta uga soo tallaabay, waxayna soo gaadheen ciidda korkeeda. Daqiiqado gudahood, ciiddii jasiiraddu waxay isu beddeshay dhiig cas. Wixii dad joogayna 3 saacadood gudahood kala badh ayaa dhintay. Dhismayaashii jasiiradda dambas ayay u beddeleen. Wixii dahab iyo hanti taalay jasiiraddan iyagoo wata ayay dib doonyahoodii u raaceen. Dhammaan qaaradda Yurub waxaa gaadhay argagax iyo isweydiin ah, maxay ahaayeen bahalahani? 3 qarni waqti gaadhaya. Marka la maqlo magaca Viking, waxaa la soo xasuusanayay dhimasho iyo dhiig daadanaya. Laakiin ciidamada Vikingsku inay wax dilaan keliya kuma aysan koobnayn. Waxaa ku jiray injineero xirfad badan u leh naqshadaynta iyo dhismaha, qaar dimuqraadiyadda yaqaan oo sharciyo sameeya, iyo khubaro dunida meelo badan gaadhay maabka dunidana wax badan ka beddelay. Documentary-gan oo dhowr qaybood yeelan doona waxaa ku jira dhiiggii ugu horreeyay ee Vikingsku daadiyeen ilaa dagaalkoodii ugu dambeeyay. Tani waa sheekada Vikingska oo dhammaystiran. Si aynu u fahanno sababta ka dambaysa in Vikingsku iyagoo caraysan ay Yurub dhinac walba dhiig ku soo daadiyaan, aynu ku laabanno xaqiiqada qadhaadh ee dhulkooda hooyo ka jirta. Vikingsku asal ahaan waxay ka soo jeedaan wadamada Scandinavian-ka la isku yidhaahdo ee Norway, Denmark iyo Sweden. Wadamadani waa wadamo muuqaal ahaan qurux badan, laakiin waxaa ka jira cimilo aad u daran oo qabow iyo baraf ah. Waa dhul buuraley ah oo dhagaxu ku badan yahay, gaar ahaan Sweden iyo Norway oo 70% buuraley ah. In wax lagu beertana ay aad u adag tahay. Wadamadan dhexdooda in laga helo meel wax lagu beerto waxay ahayd barwaaqo aan la heli karin. Qoysaskii ugu wanaagsanaa waqtigaasina waxay lahaayeen hal beer. Marka aabbaha qoysku geeriyoodana, waxay lahaayeen caado ah in wiilka ugu weyn reerka uu beerta qaato. Wiilashii kale ee isaga ka yaryaraa sidaasi ayay dhexda ugu soo dhacayaan oo wax beera ma helayaan, hanti kalena meesha ma taallo. Laakiin wadamadii kale ee qaaraddan Yurub waxaa ka jiray arrinkaasi mid ka duwan. Wadamada reer Yurub markaasi dhul beereedka way kaga wanaagsanaayeen Scandinavian-ka, oo in wiil walba beer helo arrin iska caadi ayay ahayd. Wiilashii yaryaraa ee qoysaska Scandinavian-ku iyagoo markaasi cidhiidhiga ka baxsanaya, waxay ku qasbanaadeen inay xal helaan. Maadaama ay wadamadani Scandinavian-ka ee Norway, Denmark iyo Sweden dhammaan bado leeyihiin, waxay ku qasbanaadeen dhalinyaradani inay badda galaan, sidaasina ay maal ku soo helaan. Dhammaan badmaaxiintii waqtigana jiray waxa ay ka baqayeen inay badweynta gudaha u galaan. Waxayna ku safri jireen meel aan xeebta ka fogeyn, iyagoo ka baqaya inay badweynta ku dhex lumaan, sidaasina meel xeebta u muuqata ayay ku safri jireen. Taasina waxay sababaysay in badmaaxayaashu aanay meelo fogfog ka gaadhin safarada biyaha badda. Laakiin Vikingska maadaama ay haysato duruuf aysan wadamadan qabowga badan ugu sii dhex qatanaan karin, waxay ku dhiiradeen inay doonyahooda looxa ka samaysan badweynta gunteeda ugu dhaadhacaan. Cabsida laga qabay in lagu lumo badweynta iyo barwaaqada ay heli karaan haddii safarkooda guulaysto, waxay doorteen inay barwaaqada ay raadiyaan. Si ay uga badbaadaan halista ay leedahay inay badweynta ku lumaan, Vikingsku waxay doonyahooda afka hore kaga xidheen dhagax loo yaqaan Icelandic spar ama sandstone. Waa dhagax sida quraarada ama dhalada u cad, gudihiisana ishu ay ka gudbayso. Dhagaxani wuxuu ka samaysan yahay maadada calcium carbonate. Sida magaciisa sandstone oo dhagaxa qorraxda la micnaha ka muuqata, wuxuu dhagaxani awood u leeyahay inuu qorraxda ama dayaxa ka tuso meelaan isha bini'aadamku ka arki karin. Vikingsku iyagoo awoodda dhagaxani ka faa'iideysanaya ayay doonyahooda afka hore kaga xidheen. Si aanay qorraxda ama dayaxa uga luminna, dhagaxaasi ayaa u fududeeyay inay badweynta Atlantiga ceeryaamadeeda iyo habeenadeeda madow si sax ah ugu dhex safraan. Vikingsku inta aanay safarkooda bilaabin, waxa ay samaysteen doonyahooda looxa ka samaysan. Waa doonyo dhaadheer,
miisaankooduna fudud yahay. Waxay si fudud uga gudbi karaan mawjadaha waaweyn ee badweynta. Waxay u samaysan yihiin qaab afka hore u dheer, loona nashqadeeyay sida maska daraagoonka, taasi oo dadku markay arkaan cabsi ku beeraysa. Maadaama cuntada ay wataan ay kooban tahay, cimiladuna qabow badan leedahay, inay badweynta ku dhex lumaana ay halis weyn ku tahay. Waqtiguna yahay qarnigii 8aad oo qalab badmaaxayaashu isticmaalaan aanu jirin. Vikingsku iyagoo isticmaalaya aqoontii markaasi badaha loo lahaa, si aanay wadada saxda uga lumin waxay kaashanayeen xidigaha, qorraxda, dayaxa, dabaylaha, shimbiraha badweynta korkeeda duulaya, kolonyooyinka iyo jidadka libaax badeedku maraan, iyo kalarka biyaha ay ku dul socdaan markaasi. Intaasi oo shay marka ay si wada jir isula kaashadaan waxay u saamaxaysay inay cabir saxan helaan. Vikingsku waxay ka warqabaan in gudaha qaaradda Yurub ay ka jiraan wadamo iyo boqorro maal badan haysta, ganacsi badanna leh. Kiniisadaha wadamadaasina dahabka iyo macdanta dhex taallaa aan la waardiyeyn oo markaasi kiniisadaha albaabadoodu furan yihiin iyagoo dahab iyo hanti badan iyo halkaasi dhex waran tahay. Vikingsku marka ay rabaan wadamadaasi mid ka mid ah inay weeraraan, dhinaca xeebta dagaalka kama soo bilaabayaan, laakiin si lama filaana magaalooyinka ayay iyagoo soconaya gudaha u soo gelayaan. Hantida iyo dahabka ayay guranayaan. Wixii isku dayay inay hor istaagaanna dhiigooda ayay dhulka ku shubayaan. Vikingsku waxay weerareen dhammaan wadamada qaaradda Yurub. Waxay u tallaabeen Asia iyo America. Laakiin weerarkoodii ugu horreeyay ee taariikhdu diiwaan gelisay ayaa ahaa mid la yaab leh. Taariikhdu waa dabayaaqadii qarnigii 8aad, 793 bishii 6aad 8deedii. Vikingsku doonyahoodii dheereynayay ayay badda la galeen, waxayna u jihaysteen dhinacii galbeed ee Scandinavian-ka. Waxay ku sii jeedaan jasiirad ku taalla boqortooyada Ingiriiska. Waa jasiiradda Lindisfarne oo ku taalla dhinaca xeebta waqooyi bari ee boqortooyada Ingiriiska. Waxaa lagu magacaabaa The Holy Island oo la micnaa jasiiradda barakaysan. Waxaa ku yaalla kiniisad weyn oo Kristaan ah, waxaana gudaha kiniisadda yaalla dahab, silfar iyo cunto aad u badan. Waxaana ku sugan halkani wadaadadii kiniisadda. Waqtigan iyo wixii ka sii horreeyay reer Yurub waxay aaminsanaayeen in kiniisadaha iyo goobaha Kiristaanka aan la weerari karin. Sidaasi awgeedna wadaadada jooga gudaha jasiiraddani wax huba ma haystaan, ismana difaaci karaan. Laakiin Vikingsku maaha kuwa diimaha ixtiraam u haya. Waxa kaliya ay fahmaanna waa hanti meeshii ay ka heli lahaayeen. Vikingsku waxay soo gaareen jasiiraddii maadaama ay wateen doonyo qaab cajiiba loo farsameeyay. Uma baahna inay badweynta kaga soo tagaan doonyaha. Taa beddelkeeda waxay doonyahooda ula soo tallaabeen dhinaca xeebta ilaa ay ciidda jasiiradda soo gaadheen. Waxay galeen kiniisaddii, waxayna halkaasi ku laayeen wadaadadii joogay kiniisadda iyo gudaha jasiiraddani. Waxay gurteen hantidii taalla jasiiraddani. Waxay qaateen dahab aad u tiro badan iyo silfar. Waxay kaxaysteen dadkii jasiiradda qaar ka mid ah, iyagoo addoom ahaan u qafaashay. Markaasi ayay gubeen dhammaan dhismayaashii ku yaallay jasiiraddani. Markii ay hantidii iyo addoomihii doonyihii ku gurteen, dhismayaashiina dambas ka dhigeen, inta aan reer guuraagii deegaanku qayladhaanta bilaabin. Si aan lagu soo gaadhin halkani ayay jasiiraddii ka ambabaxeen, iyagoo wata hantidii iyo addoomihii ayayna badweynta dib u galeen. Dhacdadan oo ahayd tii ugu horreysay ee Vikingsku meel Scandinavian ka baxsan ay weerar ku tagaan, ayaa shoog ku noqotay dhammaan dadyowga reer Yurub. Diinta Kiristaanka oo gudaha qaaradda Yurub awood weyn ku lahayd ayay qaab aan la filayn u weerareen. Haddii adila halkan la soo gaadhay muuqaalka like-taa ka ilaawin, sidoo kale channelkeena subscribe saar si aad u hesho qaybta labaad.